bari baa anagoo jamaca ku baxnay khuruuj meel la yiraahdo Mareykan Mareykanka waan ka tagnay oo Seattle baanu ka tagnay Vancouver magaalada oo ka tirsan Canada joogna baa nin duqa oo dhowr iyo 60 jir aan ka yaray anagu saas baan u malaynay baa arkay saddex nin oo jamacada kamid ahaayo dharkoodii buu la yaabay iyo libaaskoodii iyo quruxdoodii iyo waxay xagee ka timaadeeno qadar meel leeyahay baan ka nimido qadarba ma aqoonin ba wuxuu yiri waa xagee Sacuudiga u dhow Sacuudi warkaas uu gartay wuxuu yiri inaan idin imaadaan rabaa xagee joogtaan waxay u tilmaameen masjidkii aanu markaa deganayn marka galabtii ku xigtay waqtigii maghribka ahayd ayuu noo yimid marka inay masjid tahay markuu arkay buu ka yar istaagay idan buu dalbay wuxuu ma soo gali karaa anigu markii hore hotel baan u maleynayay inuu masjid yahay markaan ogaaday hadda waa inaad ii idantaan ma soo gali karaa soo gal kursi baa loo dhigay xagga dambe salaadii maghribka la adimay aniga salaad dadka tujiyay quraankii buu dhageystay baada quraankii kalimad baa la jeediyay kalimadii tarjuma xagga loogu sameeyay tarjumadii markay dhamaatay ayuu baa waxaan maqlay takbiir iyago Allahu akbar maxaa dhacay ninkii wuxuu yiri inaan islaam raba oo muslimaya dabada meeshii hore la keenay aniga ba shahaadateynki u laqinay ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah af'al bina wa ugu laqinay af ingiriiskana bariyahaas inahaas waan ka barbartayba xogay baan yar joognay ma garatay laakiin qolooyinkii iga fiicna luqada ayaaba ugu laqinay oo labadiiba u qaray ninkaas marka wuxuu yiri uu islaamay waa la soo waxa la geeyay hoos baa la geeyay meesha musqulihii waa soo qubaystay waa la soo tahiray waa yani waxaan ka wadaa weysadiisii iyo kulli shay cishihii isagoo muslimuun nala tukaday بعد صلاة العشاء وحير هل يقول هذا كلمة نيجيريو تفضل بالليل لو جيدي كلمة دي هذا أرنتها سوا لابد يكون بها هيدا مدة وين لكن وحن كحسوستا هذا أنا إلو بينين هذا الذي سوى حكم ذا حير هرتا أنا كلمة دي يقول هذا وحد يقول أنا يسمى أنا خطيب بانا هاي وحن كخطبين جري بويري وحن هاي بويري قسيس كنيسة ugu weyn magaaladan wadaadka ugu weyn ee joogan ahay buu yiri yani qasiiska ugu weyn baan ahay ilaa kuntamay sano meeshaasan ka khudbaynay buu marka khudbada aad baan u aqaanaa waxaan rabaa inaan kalimad sheego tafadal kalimadii wuxuu yiri waxbaan idin sheegay horta wuxuu yiri aniga ilaahay baan ku mahadinaya maydaan iiman maydaan ii soo qastin maydaan soo doonan ilaahay baan naxariistiisa ila soo doontay وهذا الكيسي وي لانه ترجمه انا ترجمه فوريه لانه شيء wuxuu yiri markaan idin warsaday oon idin eri imisa joogaysaana waxa tiraahan 4 bilood baan joogaynaa cadadkiinuna waa yar yahay waxaan idin sheegayaa anaga haddaan reer North America aan nahay yani Mareykan iyo Canada iyo North America la isku ilaa haddaanu nahay wax kasta waan gaarnay wax kastana waa haysanaa illa shay waahid oo ah السعاده لبان ما يسنو ما عندنا سعادة إيضا وحي كجرتها بوير دينتي أنيقو أن مثلي إلى لحظة سنة كبدا أن كجرينا كمر شيء بوير لأنه ما أنا كهلي سعادة دي ما أنا كهلي وحالي دين شيء يا بويري انت يرى حتى أن مسلم كالنقضي أن يلجو أيان سعادة دي دريمي ونميي لكن وحويري وعدد ديننا وايري أنا كمان كن أنا إلى مداجر أولي بان تسديدي وقتي أتشكتين نقوم في الله عدد كنا نقوم في الله أنا جيبوا ديب تشكيل نقوم بالله بوير وإن أفر بلودي واحد شيء يسان من أفر سنة نقوم في الله وأنا دل جوكتها حيا لي وحن هباب بوير بقول لا أنا جو كلا كمانكم بوير استعمالي كما أخبرنا المترجم آلاف من مثلي أو يبحثون عن السعادة جوجا بوير سعادتنا ما إلا بالدين marka ninkan ilaahay wuxuu ku siiyay umalayna wax sahla wax weyn haysataa wallahi waxaad haysato inaysan duwalka waaweyn aysan haysan khazaa'intoodana laga helo storiyadooda ma yaalaan al-iimaan huwa saada bari baan anagu meesha Suudaan leeyahay waxaan ka sameynay musaabaqada qur'aan ka jirtay baan ka qayb galay
لجنة التحكيم ليلها قرصورك أو أرضا يعني كلا ترتن كجليني شبان كمدها لجنة كمدها ماشي أنا وحنا فردين منصة ويل يرو أفريقيا مالي قول ليلة ولا شيء بالو ياري سوفريس هالك سوفريس أنا جالس سؤال شقيفتي أنا مركا ويديني لجنة مربى مد ويدينا أنا ويدينا سورة الفرقان بان أخرين سورة الفرقان بويرك أخرين أيضا صوت سعدان هذا أخري دونهم أيها أخري وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ويلكي يرى أن لين مركاته دادي سو لبيه toban saddex toban meelaha ay tahay ayadaha markuu marayo ay isku ooy dabadeed qaacadii intii fadhido dhan baa iska wada ooyday annagii naftirkeennii inkastoo adkaynayna annaga way iska ooyn qalimaantii iyo waxaan qorqoraynay way iska ilowna waa iska dhignay arrintii baan ku mashquulay meeshii oo dhan bay isbedeshay qaacadii bay isbedeshay sababta maxaa keenay ayadaha cajiibka keenay marka هذا هو دماتي حلقة دي دماتي سيدي بالو كلا تجي لكن أنا واحد وين بماشي واحد يجلس وحمرك يجلس وبحذي أنا تانو إلهي كشيء كينا إله بعد كشيء كينا وأنا كل حدا النبي لقى يا بشالي هبين هوري مالين هوري سنة كي سيدون طبعا نقط إله بحوليه أساس هيدهن وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق حال نواتين نسو مرتي إن هذا إلا بشر مثلكم درسي حال تفسيرك أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وكان إنكم كلا وبشر كأو سوق قد تاجنوا لكن كي يعتدي إسكت البايسيدين نو كلا حين هو مع الرسول كان نوعانا مر النبي ما ملك لو صدره وسجوا قرقاروا النذير سو يعني مهمة سو كلا وتودتك ولدك أما ما هما كنزي عرك اللوجو سوريدو مال فربضن لسيو أما ما جنة يبير قروح بدل أنت الله سمايو يأكل منها أو كعنو أو دبدت ككافتهم مسيدا أنا جان سوق أقول لفتون إن أنتوا كل لفتون لا وبيرتا إسكعنو في قراءة حمزة والكسائي نأكل منها أنا جان نفتر كأن الله عنه كل اسمه كدي وحي ورك كسوق قبل ورني كانوا أننا مسحورة هذا الكاس يقول له ثم الله بقى جوابي انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا جوابتي وامع مرك إلهي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا وحا خير كي سبتي ومنزه نقضي وعظمي ويناي شيء كان الله رب العالمين هدو يدونوا بدونه كسين دونا وحكا خير بدن وحا يكون شاقين أما أي دلبين يدهن موسى يشو أوامح جنات تجري من تحتها الأنهار جنات وبي هوس أرديان وهوس دريريان ويجعل لك قصور وين كوس من دونا ويجعل لك قصورا في قراءة وهو كوي لياب وكون يلياب وحايقو سو دغدغتي نبي صلى الله عليه وسلم marka dibka uu ku jiray ee hagardamada iyo cayda iyo waxa lagu sameeyay talow ma uu yiri ma ku soo nabiga qalbigiisa ma timid wiil afriqiya ka yimid maali wala ghayriha wala kiina wala ay makan ayadaha ilaahay adiga kugu difaacayo yawma min al-ayyam majma' kadul akhri doona talow arinta nabiga qalbigiisa ma timid Allahu a'lam لكن ظروفتي iyo xaaladii uu marka ku jiray iyo tasbiirkii iyo sabirsiintii ilaahay uu ku hay subhanahu jalla jalaluhu uma muuqan nabiga markaas ma uusan arkaynin walakin wacdiga iyo ballanqaadka ilaahay ayay ahayd inuu nuurka uu nabiga sallallahu alayhi wasallam u soo dhiibay
مشرقا ومغربا وقارسين دونه إلى أي كقالي إن كاير قدال بان كوري سني أفعل بهم بيقان وأيضا بدن بسوء أغري كوان محوقوه الله أعلم وشيء تأثير عجيب له كيف تأثر وأثر فينا أن نجيبون تأثيري أن نجيبوا هوشي لنودر سدي مسابقة كنا مشغولية مجمعي ودنبا يسلؤي هذا ومن عظمة كلام الله مركا إخواني بارك الله فيكم الأصل وحنوركا كسو قبقبين هذا القرآن حكا استهيقبه مادة الدعوة الأصلية هي القرآن دعوة مادة وقرآن كوي قرآن كان عظمة إلهي وينانتي شيء آخر آية أنت بدنوا علاجية لا ترى آية في صفحة إلا إلهي جل جلاله إساء كشيكين نعم كيسو كشيكين آخر كشيكين واد مغشان علماء والدين شيء آيات الأحكام ومعدودة 500 ما لقوا شيء شني بشنبق ولا ما كذا ما لقوا شيء من آلاف الآيات كلها ودعوة إلى الله وإلى رسوله وإلى الدار الآخرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.